meelun una roogna oo caasimadii Mareykanka ee Washington DC wali ha gabagabaabay lama maalmood oo booqasho oo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud usama aragne kulamo muhiim ah qaran dhiska Soomaaliya kala weeldadi hay'ado kumad ee dowladda Mareykanka oo kumad wasaaradda difaaca Mareykanka saas oo kala kumad wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda maaliyadda Mareykanka iyo hay'ado kale oo kumad saas oo kala la taliyaha amniga qaranka oo dalka Mareykanka saas oo kala madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud wali kulamo miro dhal ee weeldadi hay'adaha beesada adduunyada ma aragne World Bank iyo IMF oo isku la hadalay danaha Soomaaliya iyo ma aragne hay'adahaas ku dhahoyan oo dhamaantiyo guul ka dhamaadi saas oo kala madaxweynaha wali ma aragne khudbad ku jeediyay macadka daraasaadka caalamiga ah ee la raw CIS meelas oo is khudbad dhinacyo badan taabadaas oo dalku isku warmaayo isku jeedi saas oo kala wali xalay ha ka gabagabaayay madaxweynaha kulan isla qaadadi bulshooyinta gobolkan ka nool ee Mareykanka Soomaalida oo isku la hadalay guud ahaan ku warbiyay xaaladda dalka ku jirta gaar ahaanna intii kaalin mugleelan ku baahan intii ku qeyb qaadan dib u dhiska Soomaaliya iyo intii ma aragne ku qeyb qaadan la dagaalanka argagixisada al-shabaab madaxweynaha mid isla hadalay hay'ado ma aragne Mareykanka sida wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo la taliyaha amniga qaranka wali sifayl an nuuxsaday anti ma aragne Soomaaliya ku goonta intii la dagaalama nabadiidka al-shabaab dowladda Mareykanka iyadoo ku socdayna saas oo kale iyoona anti ma aragne Soomaaliya isku kaalmaysado doonaan anti argagixisada la dagaalama kulankaas oo lama maalmood dareeri oo ma aragne kulan guul ka dhamaadi hay ya dowladda Soomaaliya wali kulanagada doonte guulo weyn insha Allah madaxweynaha iyo wafdigeena wali in gudub doonana anti qeyb qaadan golaha loo dhan yahay qaramada midoobay shirkii 77 oo New York